waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dhammaan marti sharafta iskugu timid meesha culamaa udiinka siyaasiyiinta waxgaradka hooyooyinka dhalinyarta iyo qof walba oo ka soo qayb galay xafladan sida heerka sare loo soo agaasimay ee quruxda badan mar kale waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo shirweynaha beesha sheekhaal ee North America ayaan iskugu nimid waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyarta ururka SDN oo soo qaban qaabiyay xafladan aadka u quruxda badan kuna dadaala sanad walba inay qabsoonto haddii aan idin xusuusiyo sanadkan waa sanadkii afraad insha Allah sanado badan oo soo socdana inaan isku nimaadno ayaan rajaynaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa maadaama oo isku imaatikan ay soo qaban qaabiyeen ururka SDN oo loo soo gaabiyay Sheekhaal Development Network waxaan ku soo dhaweynayaa kusimaha gudoomiyaha SDN isla markaana ah afhayeenka ururka SDN walaalkeen Bashiir Cayshe bismillaahi الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore anigoo ku hadlayo magaca ururka dhalinyarada waqooyiga Ameerika ee jaaliyada dalkani ah ku sugannahay ee markii magacooda la soo gaabsho loo yaqaan SDN haddii aan kala dhigana loo yaqaan Sheekhaal Development Network anigoo magacooda ku hadlayo magaciina ku hadlayo magacayga ku hadlayo waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa iyo qudradiisa sanadkii afraad annagoo caafimaad qabna isugu imaanay ayaan marka hore u mahadcelinayaa socdaal baa dalka ku tagay waxaan si guud ahaan si gaar ah u gaaray gobolada Soomaaliya iyo caasimadda dalka Soomaaliyeed waxaan salaan culus aan ka siday muddo 4 bilood ku maqnaa dalka odayaasha iyo waxgarad kala duwan ee ugu horeeyaan suldaanayaasha suldaan guud oo beesha Sheekhaaleed wuxuu ii soo dhiibay xambaarsanaa waa salaan iyo bogaadin iyo dhiirigelin waxaan rabaa inaan culayskaas iska qaado si guud ahaan iga guddoontaan shaqada aan haysaana waa shaqo aad ku masashaan dhammaan beelweynta Sheekhaaleed waana ku dhiirigelinayaa dhalinyarada SDN iyo dhammaan jaaliyada inay meeshooda ka sii wadaan taasina waa culayska isaarnaa intaas haddaan kaga gudbo waxaan rabaa inaan si summarize ahaan u kor istaago waxa macquul dadka inta badan inay isweydiiyaan SDN maxay u taagan tahay waxay u taagan tahay isku xirka guud beelweentani isku xirka guud beelweenta Sheekhaal horumarinteeda iyo esto u taagan in sooyaalkii iyo taariikhdii iyo soo jireynta ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaxlahaayeen sidii dib loogu nooleyn lahaa haddii aan galo definition ahaan oo aan ka bilaabo networking la'aanteeda lama hiigsanayo development iyo in taariikhdii iyo sooyaalkii ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaxlahaayeen dhalinyaradani Allah barakeeyay aan dareemi karo sida adag u soo shaqeeyay inta badan wixii xoogga iyo diiradda saaraan sida ugu gaari lahayn horumarka iyo sooyaalkaas taariikheed isku xirka aad u jeedaan sanadihii la soo dhaafay sida adag ay uga shaqeeyeen oo ay ka mid tahay sanadkaani kana marneen xataa xusida gaarka calanka lagu yaqaan ee beesha networking la'aanteed hiigsiga fog oo la damacsan yahay sida lagu gaaro way adag tahay waxyaabaha loo baahan yahay oo muhiimka ee tahayna in marka hore la xoojiyo lagana shaqeeyo waxa tusaale igu filan oo aan laga tusaale qaadan karaa isku xirkan guud ee laga shaqeeyay in heer xataa ummadda Soomaaliyeed sida ogsoonahay dadkii ugu horeeyay oo arimahani bulshada bilaabay tusaale ahaan xataa u noqdo lagu daydo in heerkaasi networking-ka ah la gaarsiiyo dhammaan qurba joogta ku atirsta beeshaani Sheekhaal iyo guud joogta ilaa heer sare haddii aan intaas yarka aan kaga soo gudbo isku xirka guud oo wili
shaqadeeda iyo isku xirkaas mid dhammaanayo ilaa hadafkii ujeeddada la raba ee tahay haddii aan soo kor istaago ayadoo isku daba dhegan yahay horumarka inta aan ku guda jirnay barnaamijkan adag horumarka la gaaro waxaa ka mid ahaa oo soomaalidana aan uga mahadcelinayno annagana aan qayb weyn ka lahayn aan gaarsiinay allaha u naxariistay walaasheen luul cabdicasiis dadku wixii ahaayeen jaaliyaddaani si xooga ugu dhidhiyeen bulshada iyo soomaali weynta hor dhigtay si arrintaa ayadaa looga jawaabo cadaaladna loo helo gabar dambe oo soomaaliyeedna arrintaas oo kale ku dhicin waxaa ka soo shaqeeyeen waa jaaliyaddan quruxda badan haddaa halkaas kaga soo gudbo waxaa ka mid ahayd arrintii walaalkii agaasime hore cabdulaahi suldaan oo aan ka mid ahayn asagoo xabsiga ku jiro dadka la xiriirayay waxaa ka shaqeeyey inuu cadaalad helo asagoo lagu dhigaya waa jaaliyaddan SDN ku atirsato oo matasho beelweynta shaqaaleed waxaa arrintaas sii dheeraa arrintii allaha u naxariistay abwaan bedel dadka ka dhiidhiyey oo ma garanaysaa ka jawaabay masalay waa jaaliyadda quruxda badan ee Soomaaliyeed ee ku atirsato abwaankii Soomaaliyeed aan ogeyn sidii Soomaalinimada ugu dheereed ugu shaqeyn jiray ummadda Soomaaliyeed haddaa intaasi ka soo gudbo ayadoo la daba taagan yahay oo aan waxqabadka aan soo koobi karin waxaa ka mid ah inay ka shaqeeyeen jaaliyaddan quruxda badan oo SDN hirgeliyeen dhalinyaradaasi quruxda badan oo halkaas taagan waxaa ka mid ah in Soomaali galbeedba iyo mudugba ay gaarsiiyeen taakuleen kala duwan haddii ahaan lahayd dhinaca horumarka iyo dhinaca abaarihii ba'naa ay soo gaarin waan uga mahadcelinayaa inta haddaa kaga soo gudbo waxaa jiray oo aan rabaa inaan kor istaago magaca shiiqaal ama esta u taagan waxaa macquula bulshada inta badan inay isweydiiyaan ay dhahaan war dadkaani culimmada Soomaaliyeed lagu yaqaanay waa maxay qabyaaladda ay la taagan yihiin TV-yada nagama ahan qabyaalad waxaa jiray sideedaba wax la yiraahdo taariikh Soomaaliyeed tusaale hadda u soo qaato deegaanada ay ku aftirsadaan beeshan shiiqaal waxaa loo yaqaanaa tusaale ninkii tagay baa tagay gobolka Banaadir taa ku hormaro waxaa jiro meel la yiraahdo afgooy ee dhinaca markii la aado buliyada shiiqaal waa lagu magacaabaa annaga kuma aan magacaabin wax ummadda Soomaaliyeed ay ugu magacaabaan waay ka soo gudub gobolka Banaadir degmada ugu ballaaran ee la yiraahdo degmada Kax Shiiqaal waa wax lagu magacaabo oo hadduu Ilaahay ku sameeyo ogol yahay ee ka mid tahay waxyaabaha rabna inaan nooleeno haddaa ka soo gudbo waxaa maqli jirtay wadaadka shiiqaaleed shiiqaalow waxaasoo dhan waa waxa aan rabnay inaan nooleeno jiilka si wallaahigana aan barno aan u isticmaalin qabyaalada u isticmaalin taariikhdii iyo sooyaalkii soo jireedka ahayd haddaa intaasi kaga soo gudbo ayadoo la isku daba dhegan yahay oo aan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo aan rabaa inaan kaga faa'iideysto fursaddan qaaliga ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed si gaar ahna gobolka mudug ama galguduud sida loo yaqaanaba inaan tacsi guud iyo aan u diro baaq guud colaadaha muddooyinka dheeraad ka aloolsanaa si gaar ahna weliba beeshaan aan ku aftirsano shiiqaaleed iyo beelaha walaalaha oo iyaamahan dambe mudugda bari isku hayay waxaan leeyahay waxaa tihiin ummaddii colaadda demin jirtay khaasatan beelweynta shiiqaaleed waxaan leeyahay waxaa tihiin ummaddii xiliyadii adkaa oo aan soo marnay dadka maslaxadda ka shaqayn jirtay siiba waxaan leeyahay beesha direed iyo beesha shiiqaaleed arrinta mudug ka caloosan in la dejiyo wada noolaasho iyo walaalnimo lagu noolaado sidoo kale kama marno guud ahaan mudug iyo galguduudba colaadada waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo walaalnimo labada maamul galmudug iyo Puntland waxaan leenahay labada dhinac oo isku hay idinka kala masalay in arrinta ayada walaalnimo ehelnimo loogu shaqeeyo aad baan ugu faraxsanahay caawa hortiina soo istaago oo aan kala soo qayb galo SDN annual conference oo sanad walba ka dhaca gobolka Minnesota meelo kala duwan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyarada soo abaabushay organizationkan SDN hoggaanka u haysa oo runtii sanad walba isu keenta oo mar walba u taagan arrimo muhiim inay ka qabtaan bulshada dhexdeeda marka waxaan rabaa inaan wax yar ku daro inaan idhaahdo hortiina soo istaaga sharaf bay tahay dhalinyarada hawshaan wada waxaan u baahanay dhammaanteen inaan garab istaagno runtii dhalinyaradu waa mustaqbalka bulshada dhalinyaradu waa cududa bulshadeenna marka waxaa mar walba aan isku dhiirigelinaynaa dhalinyarada inaan garab istaagno aan taageerno mentorship siino fursadaha jirana aan mar walba ka qayb gelino soo ma aha reesden maxaa ka leedihiin caawa waa la jibaa umaleeyaa intaad yaana ka qaadan qolyihii DJ Flavia dhinacaga fadhiya marka ninkaas la rabo in kala kiciyo
laakiin asagaan u banaynayaa muxuu ahaa masraxa waxaan rabaa keliya inaan ku soo koobo runtii sida ay muhiim u tahay dhallinyarada SDN shaqaday qabatay inay bogaadinu mudan tahay waxaan mar walba arkaynaa iyagoo u taagan fadlan sacabiis iyo qof baa sacabka igu hal qof ay sacbi waa maasantiin iyagoo mar walba u taagan arrimo muhiima oo bulshada dhexdeeda hadday noqoto volunteering hadday noqoto gurmad hadday dhacdo maaragtay abaar hadday dhacdo arrimo waddankii ka jira ama inta ka jira waxa u taagan mar walba dhallinyaro waaye marka dhallinyaradu ha guulaysato dhallinyaradu maaragtay hormarto dhallinyaroy ilaaliya midnimada iyo isku tiirsanaanta iyo waxwada qabadka waa maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد aad iyo aad baa u mahadsantihiin farxad gooni ay ii tahay inaan joogo caawa sanad guuradii afraad ee jaaliyadda SDN Shekhal Development Network ee State of Minnesota runtii saad ogtihiinba waddankeenii Soomaaliya dhibaatooyin fara badan baa ka taagan waxaadna ogtihiin mar walbaba ka jaaliyad ahaan inay ka qayb qaataan mar walbaba arrimaha horumarka dhaqaalaha siyaasadda dibudhiska bal waxaan isweydiinaynaa beesha Shekhal heerka ay ka taagan tahay iyo kaalinta ay kaga jirto dibudhiska waddanka si guud markaa fiirisid dhinaca tacliinta heer fiican baan kaga jirnaa haddii ayna Shekhal jiri lahayna maanta dawlad Soomaaliyeed maba jirteenba taariikh ahaan waxaad ogtihiin burburkii Soomaaliya iyadoo la kala cararay cid walba isdilayso in aqoon-yahano Shekhaleed isku yimaadeen oo dib u soo ururiyeen Soomaaliya dibudhiskeeda kana shaqeeyeen sidii aqoontooda iyo horumarkooda looga qayb qaadan lahaa waxaad ogtihiin madaxweynaha hadda jira inuu ka mid ahaa raggii ay odayaasha Shekhal u yeedheen si ay arrimaha ugala qayb qaataan marka isku soo duuduub annaga mar walbaba jaaliyaddu waxay u taagan tahay horumarka waxay u taagan tahay inaan dhiirigelino cid walbaba laakiin waxay jaaliyaddu dhaliilaysaa aniga ka shakhsiyaana aad u dhaliilayaa waa dadka inagu matala ka siyaasad ahaan Soomaaliya waxaad ogtihiin beeshu inay degan tahay meel walbaba Soomaaliya Ethiopia Kenya Djibouti iyo guud ahaanba geeska Afrika marka Shekhal waa nation waa qaran laakiin qarankaas waxaa la rabaa in looga faa'iideysto sidii dib midnimadooda loogu iskugu adkeyn lahaa waxaad ogtihiin waddanku hadda wuxuu geli doonaa doorasho one man one vote buu geli doonaa marka inaan isku diyaarinno sidii aan arrimaha uga qayb qaadan lahayn inaan isku diyaarinno sidii aan dibudhiska uga qayb qaadan lahayn inaan isku diyaarinno sidii aan hoggaan uga noqon lahayn sidii Shekhal ay u noqon lahayd madaxweynaha Soomaaliya mustaqbalka dhow ee soo socda insha Allah ta'ala waxaan aaminsanahay maadaama Soomaalidii kale ay ku fashilmeen qabiil in Shekhal ay tahay qabiilka kaliya ee Soomaali isku hayn kara aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum saas waaye cawada waa faraxsanahay madaxa iyo dhagahaba waana furan yihiin marka hore waan idin salaamayaa dhammaantiin marti sharafta halkan isugu timi caawa oo noogu timid inay nala dabaaldegaan waan idin salaamayaa walaalayaal salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatuh magacaygu waa Hudo Cumar Xaaji Ibraahim Gaagaale ina korneyl Gaagaale la yiraahdaa aabay Allah u naxariisto nin Soomaalinimada iyo walaaltinimada aad iyo aad u tixgeliyo wahaa waxaan Ilaahay ka barayaa sidiisoo kale inaan noqdo hooyadayna gabar kartila bay ahayd oo laba madax iska kay dhashay ina Maxamed Diiriyo Wardoox baa la dhihi jiray magaca miskiin laga maaha raximahullah waalidkay way dhinteen waalidkayna Allah u wada naxariisto waxaan halkan aan uga mahad celinayaa oo kale salaadiinta hooyooyinka dhalinyarada haweenka iyo hablaheena quruxda badan iyo dhammaan marti sharafta caawa halkan noogu wada timi waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa oo ila socda asagana odayayga Cabdimaad Cumar Xasan Muqdisho oo nakaale waa kaftan waxaan anigu ahay bare alxamdulilah waxaan dhameeyay PhD dayda qof de Sinclair laga yaqaano wax ka qabtana waan ahay alxamdulilah waxaan halkan kale oo ka salaamayaa dhammaan dhalinyarada SDN oo xaqiiqatan
saad maqlayseenba sanadkii afraad inoo qabanaya xafladaha noocan oo kale ah dhalinyaradan waa dhalinyaro isku timid isku dayday inay resourceskooda iyo talentigooda iyo treasurekooda ay maaragtay dadkooda ay wax ugu qabtaan marka waxaan idinka codsanayaa hal mar sacabiisiya dhalinyarada SDN waxaan kale oon rabay halkan inaan ayagana uga mahad celiyo dhammaan dadka noo yimi ee martiqaadkan nooga soo aqbalay meel kasta ay ka yimaadeenba waad wada mahadsantihiin walaalayaal dhammaantiin aniga waxaan ka yimid St Cloud waxaan u orday kursi city council ah alxamdulilah 16 qof baan ahayn 16kii qof waxaan maxay soo baxday 6 ka mid ah ayaan ku jiraa oo booska labaad soo galay waa markii riili u horeysay Central Minnesota waad ogtihiin dadka degan inagu Jarmalna ma nihin Catholicna ma nihin waa meel aad u adag marka it was amazing inaynu booska labaad soo galno waxaana uga mahad celinayaa caawa St Cloud ma joogaan meesha reer St Cloud codkiina ma maqli reer St Cloud aad baad u mahadsantihiin inta i daawanaysa iyo inta caawa halkan joogta iyo inta ka maqanba dadka reer St Cloud waa dad gob ah waxay caan ku yihiin inay maydkooda isla dugtaan inay aroosyada isugu yeedhaan inay gabdhahooda iyo wiilashoodaba garab istaagaan oo garab isa siiyaan aad baan ugu mahad celinayaa dadkii ila soo istaagay oo ila soo maxay ahayd halgamay si aynu booska labaad u nimaano marka November 5th waxaan noo rajaynayaa reer St Cloud oo guul insha Allah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyarada SDN runtii soo qaban qaabiyay kulankan qiimaha badan ee bulshadeena looga hadlayo masaalixdeeda iyo danteeda oo sanad kasta u taagan in ay qabtaan kulan lagu agaasimayo lisuguna xirayo laguna horumarinayo bulshadeena runtii sharaf bay ii tahay inaan sanadkii afraad stagekani aan ka hadlo xafladaha aan ka qayb galo waa xafladda aan ugu jeclahay ama kulamada aan ka qayb galo kulamada aan ugu jeclahay ayay ka mid tahay kulamada SDN ay qabato marka aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa inaad sanad kasta inoo isu keentaan waxaan sidoo kale rabaa inaan dadka ka soo qayb galay meeshaani dhalinyarada juhdiga ay bixiyaan inaan wax yar maaragtay aan ka yara taabto intaanan mawduuca la ii dhiibo aad u ballaaran oo aad u gudaweyn intaanan guda gelin horta inaan ismaqalnaa fiicneed waxoogaa aan aamusno aan isla geysano way fiicnaan lahayd dhalinyaradan kulamadan ay qabanayaan ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay waxaa waaye inay natiijo fiican ka soo baxdo si ay natiijo oga soo baxdo micno leh isku xirkaasi waxaa la rabaa in dhalinyarada lagu xirmo la iska diiwaangeliyo member laga noqdo forumkooda lagana qayb qaato maxaan ku raahdaayay waxyaalaha ay qabanayaan laga qayb qaato gacan lagu siiyo oo aan sanad kasta xaflad intaan iska nimaadno kaliya aanan ku kala tegin laakiin lagu xirmo qodobkaas waxaan rabaa inaan dhiiri geliyo oo aan hoosta ka xadhiqo intaa kadib topiga la ii dooray ama mawduuca la ii dhiibo waa mawduuc guda ballaaran weeye laakiin waxaan u qaatay siyaasadda geeska Afrika ee reerkeenna maxaa ka khaldan oo in la saxo u baahan sidee hadda tahay siyaasad markaan ka hadlayno macnaheedu waa matalaad waaye siyaasadahunu sidoodaba cidda ku matalaysa waa cidda xilka ku haysa ee jagadii adiga aad lahayd reernimo aad u lahayd ku fadhida dadkaasaa ku matala marka dhowr iyo 10 sano waxay bulshadeenu mashquul ka ahayd inaan la dagaalanno hogaamiyo maxaan ku raadayay madaxweyne maamul goboleedyo madaxweyne federaal inaan la dagaalanno oo aan iraahno xuquuqaheennii bay ku maqan 15 sano 16 sano 20 sano u dambeeyay mashquul baan ku ahayn laakiin waxaan xaqiiqsanay halka ma aha halkana laga haysto waa matalaada cidda ku matalaysa siyaasadda kugu jirta ciddaasa ama siyaasadaada kharibi karta ama hagaajin karta marka dhalinyarada waxaan u malaynayaa sababta ay mawduuca u doorteen waxa waaye inaan halkaa ifino bulshadani waxay degtaa saddexda wadan ee geeska Afrika ku yaala Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya 20 sano u dambeeyay bulshadeena horumar fiican bay samaysay degmooyin baa soo siyaaday representation bay dadku ku yeesheen hawl fiican bay qabanayaan wax fiican baa socda Ethiopia
isbeddelkii kadib dadku waxay samaysteen ururo mucaarado siyaasiyiin ah oo siyaasadda ku jira si ay xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka Soomaalida ay ula tartamaan laakiin mujtamaceenu weli ma samaysan xisbi siyaasi ah oo mucaarada oo siyaasadda kula tartama xisbiga barwaaqo ee dalka Itoobiya ka jira waana cilad jirta siyaasiyiinta nagu matala marka ee dowlad deegaanka Soomaalida hawshii loo igmaday oo ahayd inay maxaan ku raadaayo ummadda ay wax u qabtaan su'aalayn la iska weydiiyo way fiican tahay ee Soomaaliya kuwa nagu matala su'aalayn la iska weydiiyo way fiican tahay sideesaba ninka xildhibaanka ama gabadha xildhibaanka ah jagadaada ku fadhida ee dawladda ku joogtay saddex mas'uuliyadood ayay leedahay kow waa representation Soomaalidu sida ogtiin waxay isku doorataa waa qabiil waaye deegaan la isku doorto waa representationkaas waxa waaye maadaama bulsho matalayso waxaad ka shaqaynaysaa ilan xilkan dad baa iska leh bulshada adigu ma lihid waxaad ka shaqaynaysaa waxa waaye waxa interestka u ah bulshadaasi kow waxa kamid ah xuquuqaha ka maqan ee dawlad goboleedyada kaga maqan inaad raadiso waa mas'uuliyad ku saaran hadaa tahay maxaan ku rahay xildhibaan iyo hadaa tahay wasiir matalaya reerku matalaya waxa kamid ah inaad raadiso inay bulshadu hesho degmooyin dheeraad ah waxa kamid ah dhalinyarada askarta ah ee dhaawacmaysa xuquuqdooda inaad raadiso iyo sida loo dalacsiin lahaa waxa kamid ah inaad raadiso bulshadu inay yeelato safiiro inay ku yeelato caalamka maadaama 20 sano u dambeeyay bulshadeena ay dhumisay matalaad fara badan oo xilliga siyaad barre iyo xilliga dawladihii ay ku lahaan jireen ay dhumisay marka waxa kamid ah inaad safiiro raadiso bulshadeena safiir male waad ogtiin Soomaa waxa matalaadii ay kamid tahay waxa kamid ah inaad ma garanaysaa aad u raadiso bulshada dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay shaqo inaad u raadiso oo aad uga raadiso hay'adaha dawladda inaad uga raadiso maxaa yeelay bridge-ki isku xirayay systemka iyo bulshada waa adiga adaa xilkooda ku fadhiya waa waajibaad ku saaran waajibaadkaas ma fuliyeen mise ma fulinin hal shakhsi ah oo ama xildhibaan ah bulshada nagu matalayay oo fuliyay ma jiraan marka waa ciladna haysata oo u baahan inaan ka tashanno labo qodobka labaad ee xildhibaanka uu matalo ama uu siyaasadda ugu jiro waxa kamid ah wuxuu sameeyaa waa sharci curiye bil buu diyaariyaa bilkaasoo reflect gareynaya danta iyo masaalixda bulshadiisa ayuu ku beegaa marka sharci buu geeyaa baarlamaankaas ka dooda sharci iyo faham ka soo maaxday ayaa systemka dalka Soomaaliya shuruucda Soomaaliya kamid noqota oo marka ku salaysan bulshadiisu ma sameeyaan maya xildhibaanadeena waxay ansixiyaan shuruuc xildhibaano la mid ah ay diyaariyeen bay ansixiyaan ay joogaan gacanta u taagaan laakiin ayaga wax ma diyaariyaan waa ciladna haysata qodobka saddexaad oversight buu sameeyaa qofka xildhibaanka ah oo muxuu ku sameeyaa wasaaradaha hay'adda dawladda ayuu la xisaabtamaa deegaan hebel maxaad ka qabatay magaalada Kismaayo wasaaradda beeraha maxay ka qabatay wasaaradda waxbarashada maxay ka qabatay ma sameeyaan may on top of that dadka dhibaatada loo geysto ee bulshadeena oo ay ugu dambeysay waa labada oo ugu dambeysay gabadhii Luul Cabdicaziz dhawaan lagu dilay sida gudoomiyaha uu halkan ka sheegay dhalinyarada dhamaantoodna ay meeshan ka sheegeen waxa uu istaagay ururka dhalinyarada ee SDN ayaa xuquuqdeeda u istaagay laakiin hal xildhibaan ah oo matala oo bulshadu dawladda ku matalaya intuu istaagay hal maalin kama hadlin let alone in maxaan ku raadin uu la xiriiray hay'adaha garsoorka iyo xuquuqdeeda inuu raadiyo marka dhibaatada annaga na haysata nagama haysato madaxda maamul goboleedyada nagama haysato hadda dhowr bilood ka horaan waxaan la kulmay madaxweyne kamid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaan u tiriyay xuquuqaha beesheena ka maqan oo ay kamid tahay inay senator hesho ku hesho maxaan ku raadin gobol kamid ah maamul goboleed kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya inay helaan maxaan ku yiraahdaa xildhibaano ka badan kuwa ay hadda maamul goboleedka ku haystaan iyo in askarta gobolkaas uu leeyahay ama dawlad goboleedka ay leedahay in dadka lagu daro oo ay dhalinyaradeena kamid noqoto wuxuu igu yiri madaxweynahaasi waxaan aad ka hadlaysay qiimaha badan ma diidani laakiin ya dad baa idin matala waligoodna igala ma hadlin hal qof oo ii keenay waxaan quruxda badan sheegaysid ma jiraan iskaba dhaaf inay ii keenaane oo ay maxaan ku rahay xuquuqdan aan rabnaa inay yiraahdaan xataa haddaan iraahdo waxaan u baahanahay 300 oo nin oo ciidamada lagu daro ma keeni karaan marka qofka noocaas ah bulshadiina wuu gabay qofkii magacaawday ee madaxweynaha ahaana uu lugoynaya
marka waxa naga khaldan ma aha madaxda maamul goboleedyada ma aha waxa dulmiga ku haya bulshadu ma aha dawladda federaalka laakiin waa dadka nagu matala saadarteed waxaan u baahanahay inaan maaragtay baraarugno oo 2025 iyo 2026 xilalka ay dadkaasi ku fadhiyaan inaan u diyaarino dad carbisan quality leh micno leh oo hoosaasi bedela si ay bulshadu u matalaan aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi ta'ala wabarakaatuh. First of all, I want to thank every single one of you for coming tonight. This event, putting it together, was a lot of work, but nevertheless it happened. Alhamdulillah. I want to thank SDN for all the hard work and everything that we do. Can I get everybody's attention? Assalamu alaikum. Hi, ismaqal majra. Hi, shiqal. Ko wa salamaya. Salam kadib. I want to talk to the young adults, and I want to quickly talk about a few things that we are planning on doing as SDN. Inshallah, our #1 goal is to grab the attention of the youth. One thing you guys may not realize is we have a lot of families, a lot of people who are very educated. Alhamdulillah, like lawyer Amin, like Abdiwali, Ahmed Zayed, and we also have Huda. Not only is she running a candidate for city council, but she's also college professor, mashallah, a PhD holder. We have people like me who went down the business line. I'm a business owner myself here in the state of Minnesota. Marka, our goal is to set up a foundation where we have people like Amin and Huda who are mentors to help young people be able to achieve and have the blueprint. But nevertheless, it will not be the last time. Inshallah, our goal is to get a hold of all the young adults, bring together and build a foundation, inshallah, to set stone to bring our young adults and help them mentor into professions, into degrees. Inshallah, let's build shiqal. waxaa sharaf weyn ah dhalinyarada xafladii ay soo qabanqaabisay maalintii afraad ama sanadkii afraad inaan ka soo qayb galo anoo odayaasha gobolkan kamid ah intaas waxay ii tahay sharaf weyn waxaan markaa u mahad celinayaa marti sharafta aan ahayn reerka ee xafladan meelo dhaadheer uga yimid dadkaas si gaar ah ugu mahad celinayaa waa gabdhaha iyo wiilasha dad fara badan baa ii muuqda oo dadka xafladan muxuu ahaa u yimid ee qabiil ahaan ugu yimid aan ahayn oo aad u xoog badan baa ii muuqda dadkaas si gaar ah ugu mahad celinayaa qolada fanaaniinta iyo qolada warbaahinta intaba waan u mahad celinayaa waxaan idan leeyahay isu imaatin kaliya waxaanu yuuna noqonin waa in wax qabad aad samaysaan ummadda dhalinyarada bedesha haddaad ummad fiican aragto dhalinyaradeeda fiicnaatay dhalinyarada wax bedesha odayaashu horay u tageen iyo islaamaha waaweyn dadkaas uu tagay marka ummad la bedelay oo fiican haddaad aragto dhalinyaro fiican baa u kacday dhalinyarada marka beelweynta sheekhaaleed waxaan leeyahay wax bedela gabdhiyo wiilalba intaasaan idinkaydan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa special gabdhaha quruxda badan ee caaw ka soo qayb gala meeshaan wiilasha quruxda badan familka waalidiinta intaan waa kulligeen aad idin salaamaya anigoo ku hadlaaya magaca beesha weyn sheekhaaleed maasha Allah ma la soo koobi karo caaw farxadayda say tahay 4 sano ka hor meeshaan ka imaanay iyo maanta meeshaan joogno wax isku mid maahan marka insha Allah waxaan rajaynayaa ilmaheena yaryarka ah qaasatan gabdhaheena iyo wiilasheena yaryarka youthka inay meeshaan ka sii wadaan isku bartaan jaamacadaha lagu dhex arko familka ma aha kaliya wax ceeba waa isbarasho waxa waaye isgarab istaag in la iscaawino la iswada garab istaago gabadheena yarta eedadu ay hudan insha Allah waxaan rajaynaa guul insha Allah wax badan oo lagu faanaan qabnaa ma soo koobi karno taariikh badan aan qabnaa
waxa waa dhismaha Soomaaliya waxa waa halbowlaan u ahayn anaga taariikh dheer oo la soo koobi karnay familka qabaan waa soo gaabinaya caawa waxaan muxuu ahaa waa la joogaa waxaan rabaa inaan dul istaago laba qodob markaan salaamo ee marti sharafta kadib labada qodob oo ah midka koowaad doorka jaaliyadda beesha intaan ka warhayo North America ururka kaliya ka jiro active-ka ah jaaliyadana muxuu ahaa beeshana wax u hayo waa SDN shaqooyin badan waan qabanay shaqooyin kala badanna waynoo dhiman yihiin member ahaan waxay soo gaaray fariimooyin ka kala yimid saddexda wadan Kenya Soomaaliya Ethiopia raaso ilaa iyo kaxda hoosingow ilaa iyo sagak su'aasha waxay tahay baahi waxbarasho baahi caafimaad odayaal iyo dhalinyaro la soo xigiray ayaa waxay codsanayaan inay jaaliyadda garab istaagto marka koowaad odayaasha waxaan u sheegayaa dhalinyaradii ayaga ahaa in aan jaaliyadii caawa halkan fariintii ku gaarsiiyey fariintaa maga guddoonteen okay fariintaa maga guddoonteen diyaar ma u nahay in aan garab istaagno walaalaheenna ma maqlo diyaar ma u nahay diyaar ma nahay midda labaad waxaa waaye caawa waxaan rabaa in aan dad isbartaan waa matalaad la'aanta na haysato dowladda Soomaaliya waxaan rabaa Cabdiweli ama dadka siyaasadda ku qoto dheer su'aal inaan weydiiyo aan weliga la isweydiinin beesha beeqa xildhibaan bay leedahay ma la ismaqlaa beesha meeqa xildhibaan ayay ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya wallahi shan xildhibaan aan la arkini ku leedahay waxaan leenahay ninkan odaga aqoon-yahanka oo ku nool waqooyiga Amerika xildhibaanada inta badan haddaan nahnay jaaliyadda ku dhaqan North America kuma dhegno mana dharbaxno mana karbaashno laakiin waxaa moodaa bulshada indhaheeda inay hayaan cabaad baa gobolada dhexe ka soo yeeray fartiimadii loola soo dhiibay ka mid aheen matalaadda bulshadii wii gabeen xildhibaanadaas ahaynaa laakiin waxaan ka sugnaa waa isbeddel iyo waqtiga imaan doono bashiir su'aasha kamuusan jawaabin shan xildhibaan ma lihin 7 xildhibaan aan leenahay 7 xildhibaan oo sheekhaalo wada falid weligii ma aragteen fariintan caawa halkan ka dirayna waxaa waaye inay xildhibaanada beesha sheekhaalada isbartaan waxaan ugu baaqaynaa midnimo iyo inay yeeshaan maxaa la dhahaa bargaining power inay yeeshaan isku yimaadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yihiin dadka soo qaban qaabiya xafladdan aniga gaar ahaan markii u horreysay waaye halkan aan ka soo qayb galo xafladda noocan ah waxyaabo badanna waa ka kororsaday wixii la sheegi lahaana badankiisa iyo hadday faa'iido leeyihiin iyo hadday xun yihiinbo waa la sheegay horteyda dadkii joogay waxaan ku daraa keliya aan mid ahaano waa la heli karaa ceeb ma aha war magacaan sheeganaa soomaaliyaan nahay shiiqaanaan ka nahay wax noo diidaay malayna mid ahaano meel kastoo magaalo kastoo aad tagtid waxaa arkaysaa inuu joogo qof la dhahayo maxamed shiiqaalow ama maxamed shiiqaal meelaan degnayn malish Soomaali haddii runta la sheegayo laakiin ma aruursannahay waa inaan is aruurinaa hurdadan aan kacnaa ani waxaa idinkaga imaaday Oregon akhyaarta sharafta leh rag iyo dumar dhalinyaro cuqaasha salaadiinta fanaaniinta bahda warbaahinta dhammaantiinba waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib dhowr qodob ayaan rabay inaan ka hadlo marka u horeysa waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabayaashii halkan soo qabanqaabiyey inoo soo diyaariyey dadaalka intan la egay sameeyeen iyo juhdi ay ku bixiyeen si ay isugu keeni lahayn halkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa si gaara gabdhihii dadaalka aadka u weyngeliyey oo aad moodaysaba inay ka karti badnaayeen wiilashiiba marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin
sanadkii afraad ayaynu halkan isugu nimidnay waxyaalo badan baa inoo qabsoomay dhallinyarada si khaasa faa'iidada u weyn bay halkan ka heleen because waa la isku bartay dad badan oo is aqoonin baa isku bartay saad ogtihiin hadda nin walba ninka garab taagan ma yaqaanaa hala isbarto qof walba qofka garab fadhiya baro halkuu ka yimiday xaafaddu ka yimiday halkuu degan yahay isbarashada ayaa u muhiimsan waxaynu isugu nimidnay waxaa dhallinyaro badan oo halkan isku aragtay oo wada shaqayn jirtay oo iskuul wada dhigan jirtay oo meelo badan wada joogi jiray oon is aqoonin ayaa halkan isku bartay taasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka aynu ka helnay SDN waxyaalo badan ay qabatay waxaa ka mid ah SDN ku waad ogtihiin horumarro badan bay sameeyeen oo dhinaca saad ogtihiin hadda walaasheen doctoraysa huda waa asaasayaashii iyo madaxdii halkan waxayna u taagan tahay city councilka sankalood dhammaanteen masha allah waynu garab taagannahay waana taageeraynaa sanad walba markaynu isu nimaadno waxaynu ku tashanaa magaca SDN wuxuu ka kooban yahay 3 xaraf waa Sheekhal Development Network laba ayaynu inoo hurgalay oo waa isbarashadii isku xidhkii laakiin waxaa inoo hadhay qodobkii saddexaad ee ahaa developmentiga iyo horumarinta ayaa inoo hadhay inaynu developmentigii sanadkan aynu bilowno diyaar ma u nahay ma idima maqlay diyaar ma u nahay waxaa halkan inoo yaalay sanadkii horena aynu ka hadalnay hal mashruuc aynu nidhi aynu fulino oo ahaa hal garoon oo dhallinyaro 2 sano isku xigta badisay ciyaarta kubadda cagta Ethiopia khaasatan kililka Soomaalida degmada Raaso waxay naga codsi inoo soo direen inaynu garoon ka caawino kubadda cagta garoonkaas oo lacagan aad u badnayn oo aynu samayn karno dhammaanteen ka wada qayb qaadan karno waa sanadkii labaad aynu codsigaas dirnay insha Allah sanadkan bisha March ayaa insha Allah lagu ballansan yahay Jigjiga Mall in lagu qabto xafladaas aynu lacag ugu ururinayno si aynu garoonkaas ugu dhisno diyaar ma u nahay ma ka soo qayb qaadan doonaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka horreysa tan kale waxaan ku faraxsanahay caawa inaan sanadkii afraad aan ka mid ahaa odayaashii la soo halgamay dhallinyarada sanad kasta kala qayb galay sharaf weyn bay taasi noo tahay waxaan ku faraxsanahay isu imaatinkeennii iyo muwaafaqadeenniina meel fiican soo gaadhay waxaan leenahay halka ha laga sii wado sida rag badan baa meesha hortay ka hadlay wixii la odhan lahaa waa la yidhi in la isku xidhnaado in wax la wada qabsado ha dadkii way isbarteen nasiib wanaag waddankii iyo dalkiina horumar badan baa ka socda waad ogtihiin ama kaxda ha noqoto ama gobollada dhexe ama raasood ogtihiin hadda in jaamacad laga furay jaamacaddii u horreysay oo islaamiga ah oo laga furo dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia jaamacadana way socotaa dhammaan bulshada reer Fuq Umar Cabdirasaaq Sayd waad maqlayseen sanadkii labaad wuxuu ka hadlay garoonka waxay la quman in la xoojiyo shirka hadda loo cilaamiyo laga qayb galo sayidka laga tiiriyo hawshaas iyo dhalinyarada kale Axmed Siyaad iyo mashruuca rag badan baa waday marka aad bay isugu hawleen in xagga horumarinta laga qayb galo oo lacagta la huro oo dhaqaalaha la bixiyo oo wadankii la tago oo raasa la tago kaxda la tago oo dhammaan gobolada dhexe dagaalada ka socda dhibaatooyinkana waan ka xunahay dadka waan uga tacsiinaynaa waxaan leenahay dagaalada hala joojiyo dadka hala walaaleeyo bulshada reer Fuq Umar ama Sheekhal waxaan leenahay hala isku xidhnaado aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina wassalaamu calaykum